رسول الله قد سن الزواج لكثرة النسل فبادر يا أخ الإسلام واخطب ابنة الأصل يزين قدها دين كساها حلة الفضل وأعطى طيب مبسمها عبير المسك بالقول فتاة. بسم الله والحمد لله والصلاة على رسول الله. waxaanu ka soo hadlaynay xalaqadeena sagaalaad ee barnaamijkeena tababarka nolosha guurka doonashada. waxaanu sheegnay doonashadu inay tahay ballanqaad aad ballanqaadaysid inaad doonatid gabar mucayan ah heblaayo ah. hadda yaa ku banaan inaad doonatid waxa ku banaan oo doonan kartaa haweeney ku sifootay sifooyinkan afarka ah mid kamid ah amaba u kulansatay afartoodaba inaysan noqon mid xaraan ee xurma mu'abbada waana muharramaadka aan ka soo sheekeynay ee min an-nasab wal-radaa'ati wal-musahara ahay midda labaad xurma mu'aqqata inay noqoteen sida zawjatul ghayr oo la qabo oo xurma mu'aqqata waqti ku salaysan ka xaraan ah ukhtu zawja wa ammatuha wa khalatuha intaasna ayaguna waxaanu sheegnay inay xurma mu'aqqata xaraan ka yihiin. hadda المعتدة من زواج سابق هويني متزوجة أهد أو لقبي أو حاس أهد لصوفري هذا ولا صوفري عدة يا أسعد هذه حاملة تاي حتى تضع حملها وإلا إن صوفرت هذه سن حاملة هنا عدتها 3 قروء مركا عدة أي كتير تهوينا مكوب بنانتها هنا تكون تتد مكوب بنانتها هنا لها شد أما فملكي ودرتد أو لدونتك قبل أسيل لدونه ما maxaa yeelay gabadhan wali calaaqad zawji ah ayaa kala dhaxeeyo zawjigeedii haddii ay dhameysato cuddadii waxaa ku haboon oo ku banaan inaad u tagtid laakiin haddii ay cuddada gudaheeda ku jiro ma ku banaano inaad si sareexa ah ama si laalaab leh u doonatid ama aad u shaqaysatid intaba sababtoo ah wali gabadhan waxay cilaaqo la leedahay ninkan sidaas oo kaleeto zawjatul khamisa xaas shanaad ayadana waa ka xaraan sharciga walaalayaal way banaan tahay ninka way u banaan tahay waajib ma aha walaalayaal laakiin way u banaan tahay inuu guursado afar laakiin ma lahan inuu guursado mid shanaad midaas shanaad xaas shanaad inuu qofku guursado waa ka xaraan xurma mu'aqqata haddii uu furo afartaas mid ka mid ah mid shanaad xaaskaas uu guursan karaa markaas laakiin waa inuu furaa afartaas mid ka mid ah kadibna waxaa lagu shardiyaa gabadha aad doonaysid inaysan noqonin mid makhduuba ah oo horey loo doontay haddii horey loo doontay oo nin kaleeto uu doontay oo jirto wada hadal kaleeto iyo waxyaabo kaleeto u socoto inaad u tagtid ehelka aad ku dhaahday aniga ka wanaagsan ninkan soo doonto gabadheena ka soo doontay ee aniga isiya waa ma banaano rasuulka salaatu rabbi salaamu calayhi wuxuu leeyahay laa yakhtib ba'dukum calaa khidbati ba'din walaa yabic ba'dukum calaa bayci ba'din sidaas oo kaleeto walaalayaal idima banaano inaad doonatiin gabdho muhrima ah fil hajj wal umrah haweeney xajka wareegaysa oo xajkay dawaaf ku jirto oo muhrama ah inaad shukansatid ee xajki iyo dhexdiisa aad ka shukansatid gabadhan oo xajka inta dhex wareegta aad dhahdid gabadha iyo haboon inaad guursado aniga waxa rabaa inaad xajka dhexdiisa ka guursado ma ku banaano inaad shukansatid ama ka doonatid gabar xajka adiga waad soo baxday xajka waxa u soo aaday ilaahay dartiis qasadta bayt Allah dhaaf hadda xajkeeda gabadha ha dhameysato adigana dhameyso xajkaaga marka aad manaasik al-hajj iyo manaasik al-umrah dhameysatid ayadana gabadhaas dhameysato kadib waad doonan kartaa gabadhan ehelkeeda kuwaas waxa waaye haweenka ay ku banaan tahay inaad doonatid. hadda walaalayaal mowduuc muhiim ah haddii wiil uu soo doono gabar wuxuu soo gargaraacay guriga aabihii wuxuu ku yiri aniga iyo aabahay iyo hooyaday iyo familkeeni waan wada soconaa waxaan rabnaa inaan gabadhiini soo doonano guriga ayay soo galeen kadib wuxuu arkay gabadhii oo guriga joogto maxaa ii banaan aniga aabaha ah maxaase u banaan wiilkan gabadha soo doontay maxaase u banaan gabadhan haddii adiga aad doonatid gabar maxaa ku banaan inaad samaysid gabar yahay maxaa ku banaan haddii lagu soo doonto maxaa ku banaan inaad samaysid ku baraarugo inta aanan ku dhicin xaaraan iyo dambi inta aanan dambi ku dhicin waxaa ku banaan aragtida in aad aragtid gabadhan aad soo doonatay bishuruud shardiye kugu banaan tahay gabadhan wiilkan gabadha soo doontay uu arki karaa laakiin muxuu ka arkayaa rasuulka salaatu rabbi salaamu calayhi
sheeka laga sheekanaya nin saxaabada ka mid ayaa wuxuu soo doontay haweeney rasuulka ayuu u sheegay rasuulku wuxuu ku yiri ma aragtay hal ra'aytaha ma aragtay gabadhaas wuxuu yiri ma arkin waxa la sheegay in maxaa la dhahay aan ay qurxan tahay oo gabar wanaagsan tahay rasuulku salaatu rabbi salaam calayhi wuxuu ku yiri irji fandur ilayha sidee u arkaya waxa ku banaan laba wado inaad soo dirtid hooyadaaga ama habartaada ama walaashaada ama haweeney aad ku kalsoon tahay ee keed fiiriso ay aragto gabadhaas ka aragto waxa haweeneyda kaleeta ee ka aragto hooyada ama gabadhii aad soo dirtay ama walaasha markay soo laabto waxay ku leedahay gabadhan waxay leedahay sifooyinka noocan ah ee adiga aad jeceshahay waxa leedahay tayib ina aragtaa rabtaa waa baxaysaa guriga aabaheed ayaa tagaysaa waxaad ka arkaysaa oo ku arkaysaa libaaskeedii sharciga ah ayadoo wadato waxaad ka arkaysaa wajigeedii waxaadna ka arkaysaa kafaynkeedii gacmeeda wajigana waxa ku cad ciyaarul jamaal qofka quruxdiisa wajigiisa ay ku caddahay kadibna bunyadeedii iyo qaabkeedii gabadha kor ayaad ka arkaysaa laakiin haddii aad rabtid inaad aragtid wajig timaha kalarka timaheedii iyo waxyaabaha noocaas ah wadii hooyada oo shalay soo aragtay ama darad maalin kale u dirtay laakiin inaad adiga dhahdid waxaan arkayaa gabadhan cawraadkeedii iyo waxyaabaheedii gaarka ah waa khalad in wiil uu galo ehelka gabadhaas oo wajiga bas ayaa loo ogol yahay kafanka inuu ku arko wiilka caa'ilaadka qaar waxaa laga arkaa gabadha ayadoo muxajabad oo xijaabkeedii wadato guriga markii ay joogto haddii uu u imaado wiil soo doontay waxaa laga yaabaa inay soo gashato dharkii cursiga dhar la mid ah inay dharkeedii xabadkeedii iyo maxaa lahay gacmaheedii iyo soo qaawiso timaheedii dhahdo aniga waxaan ugu yeerayaa wiilkan inuu guursado hooyada waxay ka arkaysaa haweeneyda kale waxay ka aragtaa laakiin adiga waxaad ka arkaysaa wajiga iyo kafaynka bas waxa ku banaan inaad la hadashid laakiin bishuruud adiga iyo ayada halkaas ayaad fariisanaysaan familkii dadka kale tan halkaas ay fadhiyaan waa idin jeedaa laakiin kuma banaano inaad habeenkii waqti dambeeto taleefanka kala soo xiriirtid ee aad ku dhaadid waa ku jeclahay halkaas ay ka dhacday waa isku xiranahay aniga adiga maxaa la biyaan iska dhex aragnay aniga waa ku soo doontay maxaa la waa isguursanaynaa dhawaan hadallada noocaas ah kuma banaano maxaa yeelay gabadhan wali maadan guursan gabadhan marka aad guursatid wax allaala waxa rabtid ku dhahay waa xaaskaaga guriga ay ku joogtay marka aad aabaheed ku dhahdid gabadhaada ii guuri oo kugu dhawo ku guuriye wax allaala waxa rabtid ku dhahay laakiin inta hadalkaas aabaheed iyo adiga isdhahaysaan ka hor ma ku banaan inaad saas dheerkaas ula xiriirtid kuma banaano inaan bluetoothka iyo maxaa la meelaha messengerka whatsappyada wax la isku soo diro aad ugu dirtid heesii waxyaabo aad ugu yeeraysid rabitaankaaga adiga markasta waxaad awoodaa inaad bluetoothkaada iska xiriirtid taleefkaaga xiriirtid ka tagtid risaalooyinkii waxyaabaha aad dirtirtid aad dhahdid gabadhan uma baani aniga ama ma rabi dhahdid iska baxdid sideed u baxaysaa wax allaalihi waxa aad samey rabtay ayaad samaysay waxa ku banaan aragtida shuruud fadhiga shuruud hadalka shuruud ما بنانو مركز فريسانيسان خلوة ألا لا يخلون رجل بامرأة إلا كان الشيطان بينهما ما لم تكن محرما هلا فريسان قبلنا أديكو خلوة إن مقايد إيميلك لتي هوتيلي باشا لا أدد حفلة عروسية إيميلك لتينا لا أدد أيضا نقوم بنانو إن هبينكي وقت دنبيت أدقوري كودد حفلة عروس أدان هبينكي توغي تريقي أسولابتد sidee u sameynaysaa saas gabadhan ma qabtid laxdad kasta ayaad adiga ka tagi kartaa ama ayada ka tagi kartaa waxa ku banaan aragtida shuruud fadhiga shuruud hadalka shuruud waxaas oo idil ayagoo shuruudaysan ay ku banaan tahay hadda noqdooyin fudfudud oo banaaneen inta lagu jiro shuruudada ma banaana khalwa ma banaano inaad gabadhan iyo adiga meel iskula khalwataan haddii aad rabtid waxyaabo idin qaas ah oo adinka iyo gurigiina qaas ka idin ah waxaad sameyn kartaan guriga ayaad dhinacaad ka fariisanaysaan ehelkii iyo gabadhii aabaheed iyo hooyadeed iyana halkaas ayay fadhiyaan waxaa sidaas oo kale ku banaa ka xaraan ah inaad mubaasharaysid inaad salaantid shumisid xabad gelisid isku soo dhawaataan ayaduna xaraan ay ka tahay mararka qaar familada qaar waxay sameeyaan haddii uu wiil ka soo doonto gabadhooda waxay sameeyaan oo isku soo dhaweeyaan faraantiya ay gashtaan waa la isku sawiraa ogaada ila ilaaliya ilaa familkan laga dhahaayo waxaa la aaba ii guuri gabadhaada hadalka ii guuri gabadhaada waa ku guuri intaas ka horeysa wiilkan kaliya waa wiil gabadhi oo waxay sameeyaan wiilkii gabadhii iyo baal isku sawiraa waxyaabo la isku sawiraa waxa laga yaabaa mararka qaar in la dhaho gacanta ka saar kor isqabsada maxaa laha lagu sawiro isla sawira gabadhan wali waa gabar ka fog
haweeneydan maalin kasta iyo waqti kasta ay awoodaa inaad ka tagtid sawiradaas maxaa laga sameynaya haddii aad maanta tagtid oo dhaadid gabadhan aniga ma guursanayo xagee la dhigayaa yaa loo tiirinayaa sawiradan aad isla gashaan adiga gabadhan oo adnaan weli isguursan ma banaano inaad sawiro isla gashaan gabadhan aad doonantay ee aadan welina guursanin mararka qaar waxaa dhacda wiilka uu ku dhaho gabadha iisoo dir sawirada ku qaaska ah gabaryahay baraarugsanaayo islaamku wuxuu kaa dhigay qaaliya jiddan caaliya ayuu kaa dhigay maayaamo kadib waad guursan doontaa sawirada oo dhan ayuu qaadan doonaa laa ba'as dhib ma leh laakiin hadda wiilkan waa wiil kaa fog ka waran haddii sawiradaada uu qaaska ahay oo aad si aheyd u qaato meel xun uu la aado ka tagtaan amaba wiilku uu yahay mid ilaahay subxaana wa tacaala ka fog oo sawiradaada si xun u isticmaalo kuwani walaalayaal waxay ahaayeen arrimo xaaraan ah oon ku banaaneen hadda ma banaan tahay inaan burino khidbada doonashadan jawaabtu waa nacam wiil soo doontay gabar iska soo doontay maalin ama 2 maalin ehelkii la fariistay kuna dhahay maxaa la oo guursanaba aniga maalin ama 2 bil kadib maxaa la gabadhan oo guursana bil ama maalmo kale hadana kadibna wuxuu ku dhahay waan dhaafay oo aniga waan ka baxay dib u gurasho ayaan sameeyay gabadhan ma guursanay way banaantahay laakiin ilaahay subxaanahu wa ta'aala wiilkaas wuu diinaya way uu buriyay maxaa la doonashadan iyo ballankii uu galay laakiin in wiilku inta dhoo gabadhan waa rabaa inuu guursado waana guursanaa khidbadii way dhamaatay doonashadii kadibna uu eelkii la soo xiriiri waa oo dhii waa aniga waa iska dhaafay ama soo doono waayo gabadhii ka rumey waayo caqdigii iyo heshiiskii sidaa darteed amarka burinta khidbadii iyo doonashada way fududaa ku baraarugsanaa gabar yahay waxaanu dhamaystiri doonaa sheeko aad muhiim u ah oo ku saabsan doonashada xalaqada soo socota ee barnaamijkeena tababarka nolosha guurka والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.